bartamaha maalinkii toddobaad ee bishii July Trump oo ag fadhiya dhigiisa Turkiga Erdogan ayaa Ankara ganjada kaga siibay bambo tankeedu culays badnaa ku dhex tuuray saxaafadda cunaqabatayna saarnaaba Turkida laga masaxay diiwaankooda Donald Trump madaxweynaha gobolada midoobay ee Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in la gaaray xilligii F-35 laga gadi lahaa Atrakta boqorada dagaalka jinka madow ee samada dawladda fira akhrinta raadarada ugu casrisan dunida iyo duufaanta jabaqdeeda ka dheeraysa dhowrka jeer falkani maaha mid ganacsi ee waa isdaldal siyaasad juqraafi oo qariban iyo qalad khatartiisa leh oo mandaqada oo dhan rifa sida waxa qaba aragtiyahanada siyaasadda reer galbeedka Netanyahu labada qowl buu ku xoorinayaa cadad darteed Israa'iilna durtaba durbaanada dhiiladay tumaysa Donald Trump masi bareera ayuu libta bariga dhexe u siinayaa Turkiga iyo Erdogan ka bakhti afuufaya imbraadoriyadii Cusmaaniyiinta ee gobolkoodu dhacay dhusunka hoose ayaynu u daadageynaa si aynu xaqiiqada u yoolbaadhno soo dhawaada hoobad misahin qasho maalmo ka hor buu Trump la qaatay kulan ducaysan Erdogan shirkii NATO isku wareysanaysay ee Ankara ka qabsoomay si aan digniin hore wadan buu Trump u amaanay Erdogan liba la xadlana guudka ugu raray wuxuu ku tilmaamay saaxiib daacad ah oo uga kalsooni badan yahay dar uu akhyaaru yaqaanayo dhabarka ka qaniinay diyaaradaha bariga dhexe oo dhan Israa'iil ku faani jirtay baa lagu dhawaaqay in Turkida si huleela looga iibinayo kadib sanadkii 2019 markii Ankara isku qalabaysay S-400 habdhiska difaaca hawada sare ee Ruushka lagu hindisay waana khatarta ugu weyn ee NATO wajahaysa ayaa Atrakta laga caydiyay mashruuci F-35 lagu lafagurayay in loo gacan galiyay in kale dadaalkii dheeriga ah ee xulafada Mareykanka Koongareeska iyo hal abuurka fikta sare kaga jira horumarinta difaaca weerarka tiknoolajiyadda ciidanka Yurub ayaa judadkiiba daqiiqado kooban gudahood Trump daaqada ka tuuray xubnaha ugu cadcadnaato waxay ku tilmaameen talaabadan mid arxan daran Trumpna wuxuu u arkaa god ganacsi oo uu ku baadi doonayo soo celinta milkihii Ameerikaanku ku lahaa arlada guudkeeda Israa'iil hogaamiyaheeda Benjamin Netanyahu wariisu uu bixiyay buu ku yidhi arrintan canwajka iyo qorshahan qariban ee Trump wada waa mid kala daadinaysa siyaasadda bariga dhexe iyo isku dheelitiranka awoodaha si cadho leh buu hawada ugu mariyay Donald Trump inuu gabi ahaanba joojiyo mashruucan wuxuuna ku sababeeyay in Turkigu ka shaqaynayo mijaxaabinta dawlad Yuhuuddu leedahay oo Carabta ku dhex taala hanjabaadda joogtada ah ee Erdogan ku haya Greega taageeridda Xamaas qabsashada meelo ka mid ah Suuriya taakulaynta rajiimka Iiraan iyo la xulafaysiga Ruushka cadowga koowaad ee reer galbeedka in laga iibiyo diyaarado raadarada dafiro oo Israa'iil kartida tiknoolajiyadoodu badbaado u tahay waa talo lagu hoogi doono ayuu Netanyahu ku tiraabay hanjabaadda koowaad ee Israa'iil si bareer oo aan gabasho lahayn ayaa Erdogan intuu talada hayay loogu arkay isagoo u janjeeda jabhadda gobonimo doonka ee Falastiin وعيرسنانتا دنكا شيناها روشكا iyo Iiraan ableynta Cusmaaniyiintii boqolaal sano ku nastay godkoodii iyo geerida burburka Israa'iisha ismaqiiqa kaga dhisan bariga dhexe sareynta Israa'iil ee hawada sare waxa libteeda leh F-35 oo u ah halbowlaha dhiiga ku haba wadnaha waxaan magaca diyaaradda weyska sidataay waa shabakad si farshaxanaysan loo alifay oo difaac kasta dhaaday intaanu weelayn walaxda hawada ku jirta waxa ay tahay waa muqooniyaha koowaad ee ugu awood sheegtay diyaarad kasta samada sare Turkiga helay diyaarado jiilka shanaad ah marka lagu biiriyo gantaalada difaaca hawada sare ee S-400 ciidamada dhulka oo ciida ka badan drones tirabeel ah iyo awoodda iimaanka ee Atrakta hubaashi waxay xagal daacinayaan isku dheelitiranka awoodda aaga hanashada gacanta sare helitaankan hubkan dhibaatada badan Turkiga mahaleelsinaya gacan sareynta hawada sare jawaabtu waa haa diyaaradaha F-35 waa kacaankii ugu dambeeyay tiknoolajiyadda adduunka sida xabadday uga dustaa hawada waliba iyadoo aan wada adeegsan tanka mashiinadeeda qarsoodi aad u sareysay iyo xarkatin iyo cidhib ku dahaadhan oo rara dareenka sare fariimo degdega iyo u soo tabinta duuliyaha dhugasho dheeriya oo cid kasta ku loodin karo intii ay haysatay Israa'iil diyaaradahan way ku liibaantay oo si tafatiran ugu xasuuqday kuwa ay ishayaan
hanaanka xogta lagu keydiyey waxay badanaaba la jaan qaadayaan qalabka militariga ee Mareykan Israa'iiliga Turkiga oo hore u soo saari jiray qaybo ka mid ah biraha ay ka samaysan tahay diyaaradani waxa uu markan u arkaa kansho ku duulinta iyadoo isku rakiban hawadiisa dhanka kale hubkani waxa uu Turkiga ka dhigayaa mid si sagal yar ugu itaalbata badda madow ta uu Greega la leeyahay hawlgalladiisa militariga ee Suuriya mashruucani waxa uu nafis siyaasadeed u noqonayaa Erdogan oo dunida iyo kuwa la dhashay isaguba ku dhaliileen dhiig bixinta dhaqaalaha waddankiisa balse fariinta uu maanta sidaa waa mid cad balna eega waxaanu dib ugu soo noqonay fagaarayaasha wadamada ugu awoodda badan dunida aan ku noolahay khatarta amniga halista ay leedahay xog sireedka qaabka loo dhisay diyaaradan oo u gacan gasha dalalka ay reer galbeedka xafiltamaan ayaa ku abuuraysa falanqeeyayaasha walaac baaxad leh Trump oo siyaasaddiisa arrimaha dibadda falsafad uga dhigay soo celinta saaxiibo la dayacay la dagaalanka saamaynta dhumucda leh ee Shiina Ruushka ah iyo hirgelinta Mareykan awood dhaqaale ku muquuniya dunida xildhibaano badan oo Mareykan ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid nacasnimo ah iyagoo u cugsanaya sababtii markii hore Turkiga looga cadhiyay mashruucii iibka diyaaradan maxaa diiday in la abaalmariyo saaxiib mandaqada inoo fadhiyo awood badan waa hadalladii Trump ku difaacay qorshihiisa arrinkani waxa uu wiiqaya axdigii lala galay Israa'iil ee QME kaasoo ahaa in Israa'iil mar walba haysato qalab ciidan oo tayo badan kana horeyso dhanka tiknoolajiyadda dalalka mandaqada dhaca kuwa dhaliilaya qorshahan ayaa carabka ku adkeeyay in hindisahani uu gadmadow ku ridayo naatadii lagu tashanayay iyo kala daadinta dadaal ilaa duro soo taxnaa dhanka kale Israa'iil ayaa u aragta xaajadan mid si dhaba u taabanaysa amnigeeda qaranka in dal burburkeeda u heelan uu helo hub casri oo ay sanado badan ku faani jirtay waxay uga dhigan tahay gabal madow iyo habeen baas u dumay dawladday dhowba kuusayeen haddii Turkigu helo hubkan Israa'iil waxay ku qasban tahay inay kordhiso kharashaadkii kaga bixi jiray difaaca iyo saanadii militari ay ku duuli jirtay haddaba maxay kula tahay adiga ma isleedahay qorshahani wuxuu ka gudbayaa dhadhaabaha sharci dejinta ee Mareykanka mise rajo curyaanto ee atraagtu ka cabato ayay noqonaysaa faalladaada xagga hoose nugula wadaag asxaabtaadana la wadaag muuqaalku hadduu ku cajabiyey waa mahadsantiin